warbixin arday macalinkoodii qudhow dhaafiyay darajo hoose ay ka keeneen imtixaanka darteed soo dhow daawade follow saar page-keena sidoo kale booqo YouTube-keena oo subscribe saar laba arday oo dhigtay dugsiga sare ee Iowa ayaa lagu eedeeyay inay dileen macallimadoodii u dhigaysay luqadda Isbaanishka sanadkii hore si ay uga bedesho darajo hoos oo ay siisay mid ka mid ah dhalinyaradani. Dacwad-oogayaasha ayaa shaaca ka qaaday maalintii Talaasadii dukumentiyada loo gudbiyay maxkamadda. Faafahinta cusub ee dib ka timid ayaa waxay iftiimisay ujeedada suurtagalka ah markii ugu horeysay tan iyo intii Miller iyo Jeremy la xidhay laguna soo oogay dacwad dil ah oo loo geystay macallimad Nohema oo 66 jir ahayd. Miller wuxuu kula kulmay Nohema dugsiga sare ee Iowa si uu uga hadlo darajadiisa liidatay ee fasalkeeda isla galabtii dilkeeda. Barayaasha kiiskani ayaa sheegay inay ku garaaceen Nohema goobta basketballka ilaa ay dhimatay. Maalin kadib meydka Nohema oo jirdil badani ka muuqdo ayaa laga helay isagoo lagu hoos qariyay daamur gaari gacmeed iyo xiriiriye tareen oo beerta dhex yaalay. Barayaashu waxay rumaysan yihiin Miller iyo Jeremy oo labaduba 16 jir ah waqtigaasi inay ku garaaceen basketballka kuna dhimatay gacantooda kadibna waxay kaga faaneen baraha bulshada dilka iyagu geysteen. Miller waxa uu booliska u sheegay inuu ka niyad jabay sida ay macallimadu u bartay Isbaanishka una ka cadhooday in darajada hoose ay siisay maadaama ay hoos u dhigayso GPA-giisa guud. Darajadani hoose ay labadan arday keeneen ayaa la rumaysan yahay inay tahay sababtii ka dambeysay dilka macallimadda. Dokumentiska maxkamadda ee uu gudbiyay xeerlaaliyaha degmada iyo kaaliyaha xeerlaaliyaha guud ayaa yidhi Miller waxa uu dafiray inuu wax lug ah ku lahaa dhimashadii macallimadiisa balse kadib waxa uu sheegay inuu wax walba ogaa isaguna uusan qayb ka ahayn. Jeremy ayaa isna dhankiisa la sheegay inuu saaxiibkiisa ugu faanay dilkaas isagoo Snapchat-ka kala hadlaya. Markhaati ayaa bixiyay sawirro sheekay Snapchat-ka oo uu la yeeshay dhalinta saaxiibadii kuwaasi oo cadeynaya in isaga iyo Miller ay ku lug lahaayeen dilka macallimadda. Labadani arday ayaa wali waxa socda dhageysiga dacwadooda iyagoo qareenada u doodayana ay dalbanayaan in xeerlaalintu keento cadeymayntani ka badan.